سلام بعد جد وفرح سنة هنا مركز الدحال برلمان هي شرفت له عن هوري معنا أيه أنا كعد سنة هي مدكورين تاسان عد سنة إنه كما إيمان سي متقعنا إسكا دعاء لكن وحكوت من ظروف أذك وودن كيني سو وجهي وعذر كان كورونا فيروس وكوها يودن كيني يدون العالم waxay kaloo sidoo kale ku qotontaa soo jeedintii madaxda qaranka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay amreen inaan la isku iimaan karin kulamo waaweyn annagu ka xukuumad ahaan 26 bishaan ayaan qorsheynay calaamaadkeennii wax walba inoo dhamaadaan waana diyaar garow buuxa laakiin duruufaha yimid darteed annagoo u turayna shacabkeennii galmudug iyo marshada noo imaanaysa ayaan arrinta u baajinay sababta waxa laga yaabaa martida imaanaysa meel kala duwan maalinta maadaama ay ka imaanayaan inay cudurkii la yimaadaan oo ay gobolkeeni soo galiyaan waxa kale macquul ah isku imaatinkaas hoolka la isugu imaanayo inuu cudurkii ka dhasho annagoo shacabkeena u turaynayaan munaasabadaas kansalna sidaa daraadeed ayaan ku codsanaynaa in muddo 30 casho ah oo kana loogu daro macnaheedu maahan 30 casho aan dhamaysanayno haddii 7 bari gudahood cudurkan uu ku suulo waxaan u baahanahay 5 bari aan ku diyaar garowno oo kaliya waxaan kale waa noo diyaarsan yihiin horaan ka qabanayna haddii muddadaas ay ku dhamaatana waa arkaynaa ilaahay diiraado xukuumaddu maxay ka qabatay hawshan coronavirus iyo wixii ku saabsan shir weyn aan qabanay usbuuc ka hor oo loogu diyaar garoobay cudurkan iyo faafidiisa iyo sidii mataqaanaa galmudug ay iskaga difaaci lahayd qalabaad baan dalbanay qalabka temperature iyo qalabka PPE la yiraahdo mask waa noo yimaadeen qalabaadka intooda ugu badnayd waxaan dirnay shaqaalaha caafimaad baan dirnay oo la soo tababaray ayagana berri bayna soo gaarayaan ilaahay yiraahdo subaxda sabtida garoonkan dhuusamareed iyo garoomo badan oo galmudug waxa ka dhaqan galaya tiimkii caafimaad baarayay rakaabka soo daga iyo kuwa baxaya baarayay sidoo kale waxaan sameynay guddi la yiraahdo corona task force marka guddigaas corona task force aan sameynay wuxuu ka shaqeynayaa in mataqaana cudurkaas uusan xuduudaha iyo garoomada iyo uusan naga soo galin guddigaas wuxuu ka kooban yahay wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada oo iskooladii mas'uulka wasaaradda amniga oo aan rabnaa xuduudaha Itoobiya aan la leenahay inay ka qabato iyo wasaaradda dhalinyarada sportska oo iyadana kulamadii sportska iyo isdhexgalka dhalinyarada la rabay inay xakamayso guddigaas waa hawlgalay shaqo fiican bayna hayaan hadda assessment waxay ku jiraan in xuduudda aan la leenahay Itoobiya oo pointiyo badan ah inay soo kormeeraan si ugu yaraan qof walba xuduudda ka soo galaya meelaha ugu waaweyn dhammaan lama wada control kare inay temperature ka cabiraan guddigaas qayb ka mid ah tababarada ay ku jiraan la soo siiyay dadaaladaas oo dhan socdo oo la isku keenay qalab dawladda China ay keentay dooraad keentay qaybtii galmudug ay lahayd waa soo qaadnay berri bay iyadana lagu soo wajahantahay noo imaanaysa dadaaladaas oo dhan waa la sameeyay hay'adihii qaabilsana caafimaadka WHO iyo UNICEF iyagana xiriir fiican la sameynay waa dadka tababarada qaybta ka ah tababaray isku soo wada duub wacyigelin guud oo loo baahan yahay ma hadda socota wasaaradda waxbarashada waa joojisay iskooladii wasaaradda dhalinyarada iyo sportska ayana waxay joojisay kulamadii sportska la qabanayay marka ilaa xad waxaan leenahay waa diyaar garownay coronavirus ilaahay nagu keenay wadamo naga awood badan ba iska qaban waaye laakiin taxaddar hadda intaan ka taxaddari karnay waa ka taxaddarnay mar labaad iyo saddexaad oo mahad celinaya guddiga joogtada waxaan mar labaad ka codsanayaa muddo 30 casho ah oo aan hawshaas ku eegno bal xaalkeeda in loogu daro idinkoo mudan